inantaa kale su-aasheedu waxa ay ahayd waxay leedahay ninkaygii baan ku idhi nacdale ha igu dhacda haddaan dib kuula hadlo maxaan yeelayaa ilaahay baad u toobad keenaysaa wax kafaara gudoo kugu waajibay ma jiro oo nadar maaha laakiin waa gef aad ku dhacday hadalka aad la hadlaysana kama maarmaysid inaad dee la hadasho saygaagii sidaa daraaddeed ilaahayna waad u toobad keenaysaa isagana waad la hadlaysaa xidhiidhkana waad wanaajinaysaa nacdasha waxaa la yidhaahdana qofku waa inuu ka dheeraado inuu ama naftiisa nacdalo ama cid kale nacdalo waa inuu aada uga fogaado waayo qofka haddii uu nacdalo cid aan ehel u ahayn isagay ku soo noqonaysaa buu nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam waa cadhadii ilaahay oo laysku habaarayo wax laga fogaado weeye su-aasha xasan isagana waxa ay la xidhiidhay aan idhaahda cali nuux ciidda ayaanu soo gurnaa buuli kadibna waanu qoynaa annagoo niis u egaysiinayna maxay noqonaysaa xukunkeeda maxalaalba mise waa xaraam waxa lagaa iibsanayaa waa niis tii guryaha lagu dhisayay saan u fahmay marka haddii waxaad keentay uu niis yahay ama ha qalaalnaato ama ha qoyanaatay oo hawshii loogu talagalay lagaaga iibsadaa ay qabanayso dhib male laakiin haddii wixii oo niis ahayn aad niis u iibinayso waa qish rasuulkuna wuu ka digay sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixa wuxuu ku yidhi man qashanaa falaysa mina qofka wax isukaayo khalda ama wax noo qariya ama shayga waxaanu hayn ka dhiga ummadda muslimkaa ka mid maaha markaa qofka wax kaa iibsanayaa wixii uu kaaga iibsanaya un waa inuu yahay taasaa muhiima wallaahu aclam su-aashaa hore xasan waxay ahayd geela buu yihi marka aan lisayo waysadu ma iga buraysaa maya kaama burayso waxaa laga yaabaa inuu eegayo dhinaca habeedda ku ba'aysa habeedda neefkii marka uu lisayo kaga imanaysa haddii qofka isagoo weyse qaba nijaasi ay jidhkiisa ku dhacdo xataa la qaataba madhabta sheegaysaa kaadida xooluhu inay yihiin nijaas qofka markuu weyse qaba nijaasi ku dhacdo wuu iska maydhaa saxaro kaadi dhiig mid kastaba ha ahaadee adoo weyse qaba haddee jidhkaaga wax ku dhacaan waad ka maydhaysaa laakiin weysadii kaama jabayso marka waad ka faraxalanuun weysadiina waa ku jirtaa inantaa kale su-aasheedu waxay 3 carruura baan hayaa ninkii aan u dhalay biilba iguma siiyo maxaan yeelayaa kol haddaad adugu biishanaysaad u dadaalayso ajri weyn baad leedahay laakiin biilka ciyaalka isagaa lagu leeyay wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ilaahay baa qur-aanka ku caddeeyay ninkii wax loo dhalay carruurta iyo uu dhalay iyo xaaska u haysaba labadaba isagaa biilinaya xataa hadday kala tegeen waajib saaran buu dayacay haddaad ka heshana way fiicanta haddii aad ka weydo oo aad adigu u shaqaysan karta ama cid kula tiirsato saa ay biilkooda ku helaanna waa fiicanta haddaad sabri kari weydana ashkatee waa lagaaga qaadi hadduu waxayo intaba sharcigu waa ku ogolyahay nicmo su-aasheedu waxay ahayd hooyo indhaha xanuunaya ma soomi kartee maxay yeelaysa kol haddaanay soomna soomi karayn qallayn karaynina fidyay bixinaysa fidyaduna waa in la afuriyo maalin waloo ramadaan ama hal qof ayaa la dharginayaa wakhtiga cashada ama afurka haddii la doonana raashin qallalan baa la bixin karaa oo maalintii walba kiilo u dhigma tartiibtaasaa loo wadayaa oo qofkii looga bixinaya kol haddii aanu soo qallayn karayn alladii asaabahu maradun laa yurjaa bur'u yufti fidyuu bixinayaa qofka uu haye xanuun aan la rajaynayn inuu ka buxu ka bogsado iyo qofkii gaboobayna waa la mid sulaymaan su-aashiisu waxa ay ahayd gebagabaysiga goormaa la gebagabaystaa imise salaadood baana lagu tukanayaa waxaa la gebagabaystaa markaad biyo weydo ama biyihii waad haysaaye bukaan baa ku haya bukaankaa ku haya daraaddii baanad biyihii la isticmaalayn qofkii waa dhaawac ama xanuunkii baa ku kordhaya ama xanuun aan jirin baa imanaya haddii uu biyaha isticmaalo tijaabuu taa ku arkay ama dhakhtarkaa u caddeeyey markaana waa gebagabaysanayaa labadaa xaaladoodba inta salaadoodu ku tukan karo hal salaadoo farala iyo sunnayaashii ama ka horraynayay ama ka dambaynayay ayuu ku tukanayaa waa hal faral iyo sunnayaashii raacayay ama sunnayaal intuu doono inantaa kale su-aasheedu waxay ahayd hagbad baan ayaan hayaa khidmadna waan ka qaataa waan ku celiyaa xukunkeedu waa maxay
horeynu usoo xusnay hagbadda in culimada qayb ka midi ay yidhahdaan waa bannaan tahay sidaa daraaddeed kol haddii ay bannaan tahay inaa la isticmaalo oo la galo hawl dheeraadana aad qabanayso oo lacagtan amaahnimo aanad ku qaadanaynin khidmadnimo aad ku qaadanayso iyo kaashkii oo aad haysood ku tabcaysa daraaddeed dhib ma leh wallahu aclam alxamdulilah su-aalaha faraxta hore waxay ahayd inanta ma loo bixin karaa mustaqiima ma mudathir ma odhan karno waa mamnuucoo ma bannaana wase laga wanaagsanyay magacyada ama qofka eediisa iyo xumaan tusinaya ama ammaan siyaadaa tusinaya sida barra oo kale mustaqiimna waa laga yaabaa inuu egtay qofkii toosnaa qofkii wanaag falaha ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam zaynab buu ugu bedelay marka magacyadii asxaabta kuwa qur-aanku sheegay kuwaasaa fiican in rag iyo dumarba loo bixiyo dadka da'da yar marka magaca loo bixinayo magacuna had iyo jeer dee waa wax qofka muddo dheer la soconaya mana sahlana sida loo fudaydsada ma aha marka culimada waa in lagala tashadaa ilmaha marka loo magac bixinayo su-aasheeda kale waxay ahayd kaadh baanu aniga gabadhi wada leenahay yaa ku qaadanaya raashinka waxa isweydiin la yaa loogu talagalay yaa ku qoran ee loogu talagalay qofka loogu talagalay hay-addu ay siinaysa ku qoran kaasunbaa leh wixii waa hibo iyo wax qofkan la siinayo marka ciddii loogu talagalay ee magaciisu uu ku qoran yahay baa leh kaa kale wax wuu ka siin karaa laakiin dee kuma qabsan karo kol haddaanu lahayn su-aalaha faysata hore waxa ay ahayd raashinkii agoonta wax ma laga cuni karaa horeynuu soo sheegnay qofka wax ka cuni kara agoonta inuu yahay qofka wax ku darsaday ama wax u qabanaya marar badan baynu taa ku soo celcelinay qofaa waxna ku darsa waxna u qabanaynin waxba kama cuni karo dee culays buu ku noqonaya su-aasheeda kale waxayd xoolaha nool marka sekadooda la guddoomayo telefoon ma lagu guddoomi karaa maya guddoomitaanku waa dhiibid dimiyaa laguu dhiibay waa hadal hawada maraya qofka marka la odhanayo hebel baa waxaa ka soo guddoomay ama af carabigana qabdi baa la idhaahdaaye wuu ka soo qaaday weeye wuu kala soo wareegay marka tiyo xaqiiqaa waa in la helaa neefkaa waan ku siiyo sekaan kuu siiyey muu milkiin mana yeelanin lamanuu wareegin ilaa uu guddoomo su-aasha inantaa kale waxay ahayd haddii ninkii aanu carruurtii igu biilanayn fasakhaad ma ka qaadan karaa kor hadduu dee masruufkaagii isagoo kari karaya diiday ama waayey wax kaaga qaadana aad weyday una sabri kari weyday haa qaadigaad tegi kartaa cabashadaada waad gaadhsiin kartaa xaaladiisaa la qiimaynayaa waaba laga yaabaa inuu markaa dhiiqo oo uu bixiyo wax marka ashkatadaa waad gudbin kartaa oo sharcigu waxyaabaha ruuxa dumarka ah u siiyey sababaha fasakha ay ku fasakhan karta waxaa ka mid a inuu dee biilkii waayo mas-uuliyaddeediina wuu qaado iyadaa lagu ogyahay marka waanay sabri kartaa waxaanay codsan kartaa fasakhna way codsan kartaa cabdiraxmaan su-aashiisu waxay salliga nebiga ma lagu salligi karaa sala allahu calayhi wasalam iyada oo khudbadda lagu jiro oo imaamku akhriyayo haa waa lagu salligi karaa sala allahu calayhi wasalam laakiin hoos baa loo dhigaya si aan dadka loo mashquulinin dhagaysanaya khudbadda inankaa u dambeeya su-aashiisu waxay ahayd haddii laba masjid aanu leenoo midibadhan yahay ama kii yaraaye hore uu yahay madrasad ma ka dhigi karnaa qur-aanka lagu barto haa waa laga dhigi karaa mixraabka waana laga jari karaa waana loo dayn karaa dhib ma laha mixraabku waa qayb dhismaha ka mid ahun kawar baaba laga dhigan karaa marka la doonana waa lagu tukan karaa laakiin maadaama masjidkuna uu waqaf ahaa madarasaduna ay waqaftay sideedabana masjidku iyo goob wax lagu barto waxaa la kari karaaba inaan masjidnimadiiba laga kaxaynine malcaamadna uu noqdo marka la doonana lagu tukado wallahu aclam